بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. إله قوم هاتسان سبحانه وتعالى نسيي جانس كليتو وأنقصي نورانو مالين كليتو أو كميدا مالمها الدنيا. فرصداس waa fursad weyn ardayda sharafta badan fursadaas iyo jaaniskaas maalin walba aan soo kacayno waxaad ogsoontihiin inay ka mid tahay cimrigan mana aan ogin meesha uu ku dhammaan doono. sidaa darteed maalin walba subax kasta oo noo soo kacda waxay noo tahay fursad iyo sidoo kale امتحان وراقات امتحان او نلو ديبي او نلو سو هرغي ardayga sida caadiga ah imtixaanada markii la gali jiray warqadaha markii lagu dhigo waxaa la rabaa inaad imtixaankii iyo waxyaabihii aad soo baratay aad ku jawaabto ma sidaas oo kale maalin walba warqad imtixaan ah ee naloo dhigo waaye laakiin waxyaabihii aan soo baran la rabo inaad ku qorto tusaale ahaan kale jaanis kala haysataa maalintaas oo dhan waxyaabihii mustaqbalka ahay ama waxyaabihii acmaashii ahayd inaad ku qorto si maalinta adduunyo lagugu soxo ama lagugu xisaabiyo. fursadaas marka ilaahayna siiyey ayaan ugu mahad celinaynaa marka ugu horeysa. maanta taariikhdu waa 14 Agost. waxaan fursad u helay inaan halkaan soo istaago ama soo fariisto anigoo raba insha Allah inaan qayb ka noqdo bal hal eray in layga faa'iido ama hal eray inaan u gudbiyo ardayda sharafta badan. fursadaas maamulka iyo iskuulka siiyana waa ugu mahad celinaynaa aad u mahadsantihiin. dabcan iskuulkiinu waa idin dadaalaa subax kasta maalin walba si routine ah oo aan kala joogsi lahayn oo maxaa la yidhahdaa hagrasho lahayn ayuu idinkugu dadaalaa. kaliya kuma ekaado in waajibaadkii aad ka soo doonateen oo casharada aad bis laydinka siiyo, laakiin wuxuu ku ammaanan yahay la rabaa inaad ka faa'iidaysataan oo aad garataan fursadda kaleeto oo qiimaha badan ee laydin fidiyey wacdiyada iyo duruusta goonida ah oo ka dheeraadka ay idin siinayo. adduunyada waxaa waaye fursadaha qofka markii la siinayo lala talinayo ama tala guud la siinayo dadka adduunyada lacag ka baxshaan. dad waxaa jirta oo u furto meelo yaa ama consultation centers xarumo loo furaa jiro la talin dadka inay la taliyaan ama ay baraarujiyaan ama ay wax ka sheegaan, laakiin si bilaash ah casharadaadii iyo waxyaabihii duruustaadii ka dheeri ayaa waxaa lagu siiyaa si maalinle ah. waa noteful advices waa faa'iidooyin ama waanooyin iyo baraarujin aad u qiimo badan. ardayda marka inay intaas ku baraarugaan ayaan rajaynaynaa insha Allah. maalmahan oo dhan iyo maalmihii kasii horeeyo macallimiintu waxay idiin soo gudbiyeen qodobo muhiim ah oo asaasi u ah saldhig u ah ardayda sharafta badan inay guulaystaan adduuniya aakhirada. adduuniya aakhirada inaad guulaysataan ayaa laydiin soo bandhigay. maxaa laydinkaga bilaabay marka alla ka cabsiga in lagu dadaalo ardaygu si uu u barto waxaa laga bilaabay alla ka cabsiga soo maahayn. ilaahay qur-aankiisa muxuu ku dhahay markii aad aniga adiga cabsataan aad wax idin baraa soo maahayn wattaqullaaha maxaa ku xiga wayucallimukumullahu soo maahayn. alla ka baqa ayaa lagu horreysiinaya. marka maadaama ay saas tahay qodob muhiima ay tahay alla ka cabsiga ayaa wax walba laga bilaabaa. marka macallimiinta ayagana saas idin barbaaray maalin walba idin sheega maadaama bini aadamku u baahan yahay maalin kasta xasuusin waa ay ku mahadsanyihiin macallimiintu. waxayna ogsoon yihiin markii saas la sameynaayo adduunyada waxaa loo joogaa in la guulaysto aakhirana xisaab soo maa in la shaqaysto la hormariyo nafta bini aadamka oo horumar la gaarsiiyo. horumarkaas wuxuu ka bilaabanaa diinta oo lagu sheegaa maalin walba. sidaa darteed waxaan possible ahayn ama macquul ahayn in horumar lagala hadlo ayadoo marka ugu horeeya aan lagu sheegin meesha ka bilaabanayo oo ah alka cabsiga iyo diinta. macallimiintu way ku ammaanan yihiin mar kale qodobkaas inay qodobadaas ardayda ka dhisaan mar walba. ciwaankeena marka maanta aan rabno ardada markii la soo sheegay alka cabsigii iyo guud ahaan in laga bilaabo asaaska mar walba
وحارنا أرضه ما أنت وحبرشة إن أسكلها ظلم وحبرشة إن أسكلها ظلم ربنا أرضه وحبرشة مالي والبهكة اليمات إسكولك الوصول عروضات عشرة لقاتا وحبار القدرة شغل قوتا شغالي مركا قوتا حافظي كل اللابطا حافظي مركا كل اللابط حاسم ميسان وحاسم مينا وحبان أخرنا سوما أرضا قاركودنا وحما أخريان مركا وح أخرسكو ووح أوه الرئي كبل اللابطو وحبار شدو وح أوه الرئي وكبل اللابطو وحبار شدو سببتا ساس أولينا محاواي قرآنك مركي أو سودقاي waxa ugu horeeyo oo soo degay suurada ugu horeysa maxay ahayd suuradu ama suuratul iqra soo maahayn suuradaas waxay sheegaysaa iqra nabiyow aqri waxaan lagu sheegayo oo lagu barayo tacliimaadkan iyo duruustan lagu barayo diiniga ah aqri oo iga daba dhig saasaa la amray nabiga sallallahu alayhi wasallam marka meesha sir muhiim ah ku jirto aad weyn carabiga ereyga iqra meeqa xaraf waay اقرأ مركي اللي يراهو ما حرف واي يا اقرأ مركي اللي يراهو والف يقاف رأي هي همزة أفر صوما هي إنجليش كم حاول لها عربي عربي أخر يا هي محاوي وريك صوما أصلا ما يقحب واي يا أفر حب صوما أهرن وين أقول لك مهمة مركا la rabo in lagu tabarruc lagu sameeyo la baaro sidoo kale af Soomaaliga naftirkiisa aqri markii lagu yiraahdo amar la isticmaalo meeqa xaraf waaye afar Soomaa sir weyna ku jirta marka ardada assignment-gaas waxaan rabaa inaan u diro ay soo baaraan horta assignment ma la soo diro assignment waxa la yiraahdaa assignment waa shaqo lagu diraayo rabo ardayga inuu baxthi ku soo sameeyo am research hala soo baaro marka xoogay sirtaas waxbaan kala dheesanaynaa ma hala soo baaro marka waxaan isla fahmaynaa wax walba adduunyada waxay ka bilaabanayaan markii la rabo tacliimaad wax akhrinay ka bilaabanayaan soo ma waxaan rabaa marka ardayda waxaa jirto su-aalo badanaa ay ardada weydiiyaan ardada macallimiinta ay weydiiyaan oo ah macallimo waxaan jeclahay mar walba inaan wax akhriyo ha yeeshee waxba iima suurtaabaan mar walba oo sideedii ayaan hor isma bedelo maxay weydiiyaan su-aasha maxaa waaye waxaan qalbiga ka jeclahay inaan wax akhriyo soo ma haye laakiinse waxba iima soo kordhaan oo iima suuraabaan maalin walba sideedii ayaan ah soo ma su-aashaas marka si aad uga daawoodo waa qodobka ugu horeeya su-aasha ugu horeeya oo muhiimka ah rabna inaan ka jawaabo islana qoran sidaa darteed noodadka aan insi doono buugta la kala baxa wixii nood ah ama qodobada lagu sheegayo la rabo inaad raacdo si aad uga guulaysato qodobkaas buugtiina la kala baxa qalimaantana la baxa yaa maadaama hadda xiisad ay baxayso maadaama xiisad baxayso macallimiintu hor taagan yihiin hadda qodobaan sheegaynaa maho taabuurka waxbaan isugu sheegaynaa si ay u xasuusnaato waayo badan aadna uga digtoonaato qalinka la bax marka qalinka la bax qodobo badan rabnaa inaan isla fahmno ya waxyaaba badanaa rabnaa inaan isu sheegno qalimaanta la baxa marka يلا بسم الله هي قلمات ملبحة ذلك قلت أوه رأي وحواي مرتا إنا تحواي اسبدل آسميسي اسبدل مرتا إنا سميسي يا محال ربا إنا تقادكو تلاوة سوما تلاوة سيئات قادو حالة أتكسو غنتها مركو هراء قوسانينا xaaladda qofka uu ku sugan yahay oo xaaladiisa iska caadiga ah ee normalka si fiican fahmaya xaaladda qofka uu ku sugan yahay ee oo mar walba daa'imo uu ku jiro ee oo isla qabsaday ee wax akhris la'aanta ah ama wax qabad la'aanta ah xaaladaas isbedelka aan lahayn ee qofka uu la qabsaday waxaa loo yaqaanaa comfort zone wuxuu ku jiraa qofku xindaabkiisa raaxada la yiraahdaa comfort zone qoro ereygaas waa si macallur ergaas inaad wada xariiqataan rabaa xifdaya waa C O N F F madad O R T haye zoom kuda waa Z N may Z O N E ha Z O N E
n waa n macna ayo convertizone maxaan ka wadnaa ardo convertizone waxaa la yidhaahdaa xaaladda qofka uu ku sugan yahay oo caadiga ah xayndaabkiisa raaxada la yidhaha xayndaabkiisa raaxada waa xaaladda qofka uu la qabsaday oo aan isbeddelka lahayn oo in laga qasa oosan rabin yaa xaaladdaasaan waxaan rabnaa in la tilaabo zoom maxaa la yidhaahdaa hareeraha ama xayndaabka raaxada qofka ee noloshiisa ay ku jirto kaasaa maxaa la yidhaahdaa kaas comfort zone aa la yidhaahdaa maxaa la rabaa marka in la tilaabo soomaa xayndaabkaas laga gudbo xayndaabkaas si looga gudbo qodobaa la raacaa marka qodobada waxaa waaye marka kow haye qodobka koowaad maxaa waaye in la iska dhaafo kow maxaa waaye in la joojiyo baqdinta cabsashada ama cabsashada in la joojiyo cabsashada qodobka koowaad maxaan dhahnay si aan uga baqno xaaladaas isbeddelka bini aadamku ma jecla oo xaalad laga guuro meel laga guuro guri laga guuro meel kale la aado xaafad laga tago meel kale la aado socodka bini aadamku ma jecla isbeddelka ma jecla waa xaalad nature ah waa dabiiciya qodobkaas marka si loogu guuro waxaa la yidhaahday in laga joojiyo cabsida in la iska dhaafo qodobka koowaad waaye qodobka labaad maxaa waaye haye inaad samaysato saaxiibo inaad samaysato saaxiibadaasoo wanaagsan saaxiibo wanaagsan iyo saaxiibo xunaa jira soo maa saaxiib walba shaatiga uu leeyahay kuu gelinaa mid wanaagsan haddii aad la saaxiibto qof wanaagsan aad noqonay saaxiib xun haddii aad la saaxiibtana qof xun ayaad noqonay soo maa saaxiibada mararkii la isaga digaayay waxaa ka mid ahay tusaale ahaan oo kale shicirka halkaas noogu yaala qofka saaxiibka xun ee liita ee beenlowga ah ee aan dadaalin ee caajislowga ah ee aan horumarka u soconin saaxiib ma noqon karaa horta qofkaas saaxiib fiican ma noqon karaa saaxiib waayo dad badan oo saaxiibo yahay oo nolosha ka dhaceen sidiisoo kale laakiin saaxiibka ardayga ku habboon wax baranaya ma yahay maaha soo ma kaas waa la isaga digi marka imaam shaafici radiallahu canhu wuxuu leeyahay wadacil kaduub waxaa la yidhaahdaa beenlowga qofka beenaalaha beenta badan qofkaas ka tag iska ilaali qofkaas mujeedaa beenlowga ah qofka maxaa la yidhahdaa saaxiibka xun ah iska ilaali haye falaa saaxiiba yuusan saaxiib kuu noqon qofkaas jumladaas inaad qorataana jeclaadaha si aan fasirnaya hal jumlo oo kuu soo kordha maalin walba ee aada barato maxaa waaye waa cilmi kaa maqnaay oo kuu soo kordhay oo berito meelo badan u daliishan karto oo isticmaali karto ayay qalmaanta la baxa hal mar noo qora darsi ahaan ayaan ka dhiganaynaa taabuurkeena duwacdayaan hadda kadib yaa hala qorto ardo haye wadaci lkaduuba falaa yakun laka saaxiban ina alkaduuba yushiinu xuran yusxab hala qorhay hala qorto yusxab inaad qortaana jeclaalayn si ay wax gal idinkugu noqoto aada berito u daliishataan meelo badan aa u isticmaashaan arday walba ardaygo noodka ka qaada og yahay wax ka qora og yahay waa ka cilmi badnaadaa maalmaha soo socda ama iyaamaha soo socda ama mustaqbalkiisaba yaa qof walbaana inta cilmi ku jirto inta xikmad ku jirto inta erey ou erey dheer yahay qofka kaleeto ayuu faa-iidaa soo maha oo ka caqli iyo cilmi badanya intaba jumladaas inaad qorataan marka dad badanoo gacmaha saartaan arkaa hay hal qorto ya sabuuradda idinkuu qornaa doonaa intii qorata ayay afsirna marka wadaci lkaduub qofka beenaalaha iska ilaaliyaa lii falaa yakun laka saaxiban yuusan saaxiib kuu noqon ka tag qofkaas ka digtoonow ina alkaduuba beenlowga ama beenaalaha qofka beenta badan oo saaxiibka xuna yushiiu ama yushiinu wuxuu dhaamayaa oo hallaynayaa xuran qof xur ahay oo wanaagsan haddii uu beenaalo qof ah la saaxiibo yushiinu wuu hallaynaa macnaha yusxab markii uu la saaxiibo ama haddii uu la saaxiibo markaas qofka saaxiibada ah badanaa waxaa jirto saaxiibo badan oo saaxiibo ah oo aad saaxiib aada u malayso wanaagsan haddana saaxiib wanaagsan aan ahayn oo markuu kuu imaadana si fiican kugula jooga markuu kaa tagana dadka kale kaaga sheekeeya oo xumaantaada faafiya soo maa saaxiib walba fiiriyaa qof walba qofuu saaxiib leeyahay soo maa
marka adiga midka saaxiibka ku ah mid kale u taga xogtaadii haye wanaagaagii ama xumaantaadii meelaha ka jilicsanada qof kale kula saaxiiba uu taga hadana marka waxaa yidhi yalqaaka xalifan ama yaxlif wuxuu kugu soo tuurayaa qofkaas dhaar wuu kuu dhaaranaa annahu bika waatiqun inuu kugu kalsoon yahay uu saaxiib rasmi kugu yahay ayuu kuugu dhaaranaa macnaha saaxiib fiican ku ahay saasaan ku ahay saaxiibka halista ah kaas waa soo maa وإذا توارى عنك مركي أو كامر قنع أو كاجست أو كاتبه توارى هو مركي أو كامر أو كاتبه هي عنك هذه حاجة فهو العقرب وسيد الضلقلاع يوكله وقعنا عقرب بحالي دبقلاع بالك اللي هذا هرانك وقعنا صاحب ونكسن مع كاس هي يعديك من درف اللسان حلاوة عربك وحكاجة شيء ورمعان ورمعانا اللي هذا وحو كليه هاي حيصدان كمرقار واي قادة أنا كسوغنو ليه والد دالا هدي الله خود مالي حقور مالد دالا لكن وحو كليه هاي لذلك نفتر كيس وحاواي إن محل الاسكي مالو كدبنا الاسكي بحب إنه والد كلاقب وانتو هاس وحياوضا ونكو شيئا سوما حدود المحاورك منك قفكي ونكسناي وأستقل أن قولها ليتا أركي تضونا وحاجرة haddana jooga maqan waxaa jira marka meeshaas haddii aad saaxiibada iska fiirin oo aad qodobadii aadan raacin maxaa dhacaysa hadhoodii markii imtixaanadii ay yimaadaan waxbarashadii ay yimaadaan maxaa waaye markii imtixaanada la geli lahay ardaygii deg deg inuu ku furmo oo macallimiintii ka daba wareego oo buugagtii uu ka daba wareego waxaa jirta qaacido la yidhaahdo cramming rule cramming ruleka waa maxay waa ayadana qorta tusaale ahaan oo kale in si degdega wax loo barto imtixaanada markii yimaadaan oo kale iga daba geyniyo shalay maxaa la qaatay ciwaanada ii sheeg macallinka uu sheegay qaacidadaas isticmaalkaas degdega ah oo aad rabto macluumaad badan oo ku dhaafay inaad ka ogaataan maxaa la yidhahdaa cramming rule la yidhahdaa cramming rule qorta ayadana waa C R A double M ING rule ku darankaas xeerka cramming ruleka maxaa lahaa asaad waa si degdega inuu macluumaad ardaygu si waa maxay load information ama extensive information inuu isku dayo inuu ardaygu xifdiyo hal mar ya taasoo suuragal aan ahayn cramming rule haddii lagu weydiiyo maxaa laga wadaa ya iga dabagey waxaan maxaa la qaatay shalay imtixaanka intuu ka imaana macallinka intuu sheegay 3 jabtar 4 jabtar 5 jabtar inaa hal mar hee aad isku daydo inaa xifdido mana xifdi kartid hal mar marka sharcigaas isagana waa maxay waa sharci la isticmaalo iga dabageeya la yidhaha soo maa marka saaxiibka wanaagsan asaga waxaa waaye wuxuu kugu tarbiyanaa mar walba inaad isu timaadaan wax isla akhrisataan hore u socotaan soo maa kan xun maxaa waaye asaga ma kuu imaanayo wax aqri ku dhihi maayo muxuu kuu jeedaa bis dhinaca waddada xun dhinaca hee waddada xun ayuu kuu jeedayaa haye gabaygaa noo sii socda macnihiisa marka waxay ahayd yucdiika min darafi lisaan xalaawa carabka ayuu wuxuu kaaga sheegayaa saaxiibka xumi ama beenaaluhu war macaaro kaaga sheegaa haye wayaruuqu minka wuu ku cunayaa markaas kadib ama wuu ku qaniinayaa asagoo ku dhagrayaa markuu kaasii jeetana kaa sheekaynaya kamaa yaruuqu thaclabu sida bahasha taclabka la yidhaahdo ama dawacada ay ku cuntoo kale ayuu ku cunayaa waa ku googoosanaya waa kaa sheekeynayaa waa wuxuu ku leeyahay hebel miya ahaa heblaaye miya ahaa hebel waaye saas waaye haye walaqad nasaxtuka waan kuu nasiixeeyey ku leeyahay imaam shaafici haye in qabilta nasiixatii nasiixadeeda haddii aad aqbasho waan kuu nasiixeeyey haddii aad aqbalaysaan talo waa idin siiyey qofkaas iska ilaaliya haye wanusxu aqlaa naseexada aan ku siinaayo iyo waanada ayaa waxay ka qaalisan tahay haye maa yubaacu wayuha waxyaabaha la soo gato dhan ama laysu hibeeyo waa maxay maxaa ka qaalisan oo leeyahay naseexada ama wax isu tilmaaminta wax iska reebidda in sida saxda ah lagu sheego waddada saxda aad maraysay lagu sheego ayaa waxay ka qaalisan tahay oo leeyahay haye maa yubaacu wayuha waxyaabaha la gato dhan oo suuqa yaalla ama laysu hibeeyo dadku isu hibeeyaan marka gabaygaas imaam shaafici ayaa iskale in la xifdiyana waa la rabaa ardadu ay isticmaalaan
saaxiibka wanaagsan ay ku dadaalaan kaliya midka xunna waa maxay ay iska reebaan yaa saaxiibka wanaagsan inay ku dadaalaan kan xunna ay iska reebaan marka waxaan ku jirnaa hadaaye waxaan dhahnay xaaladda qofka oo la qabsaday xaaladdaas waxaa loo yaqaanaa isla ogeyn haye xaaladda uu la qabsaday oo noloshiisa haye maxaa la dhahaa xayndaabka raaxada soo mahayn muxuu ahay macnaheedu see loogu dhawaaqay comfort zone mahayno maxaan dhahnaa marka si looga baxo maxaa la qaadaya tillaabada ugu horeed maxay ahayd inaadan cabsan oo waxyaabaha aad qaban rabto aadan ka cabsan saaxiibo wanaagsanna inaad samayso soo mahayn haye sidoo kale qodobka saddexaad han inaad degsato han maxaa la yidhaahdaa goolis ahdaaf meelo aad ku riyoonayso inay jirto meelo aad ku riyoonayso inay jirto oo isbeddel ah haye meelaha la taabsada adduunyada soo maaha wax walba adduunyada fiiriya wax walba oo la samaytago waxaa loo sameeyaa qorshe ama balaan ayaa loo sameeyaa soo maaha adiga maxaa degsanaya marka ardayo ahdaaf goolal ayaa degsanaya waxaa jirta laba erey oo la kala yidhaahdo goolis gool ma la yaqaano sida loo qoro iyo objectives wax la kala yidhaaha jiro gooliska maxaa waaye ahdaafta fogfog oo mustaqbalka ah siyaabaha aad noqonayso inaad noqoto qof mutacallim ah oo wax bartay oo waxbarashadiisii ku anfaca ku cibaadaysta ilaahay ku barya dadka ku caawiya haye oo horumar ku gaara ahdaaftaas waaye kuwaasaa maxaa la yidhahdaa goolis waa ahdaafta waaweyn oo fogfog waaye objectives waxyaaba la yidhaha jiro marka oo ahdaafka gaaban ah sida tusaale ahdaaftaas weyn si loo xaqiijiyo maalin walba ardayga waa inuu soo xaadiro oo hal cashir barto cashir kala barto maalin kale cashir barto oo ku dadaalo maalin oo waxba jumlad faa'iido jumlad kale sii faa'iido oo socdo maalin walba oo hal eray laba jumlad saddex jumlad oo barto oo ka gooniya cashiradiisii ka dheeraado oo bartaan rabaa noodkaas qaato kuwaas maxaa la marka waa ahdaafta gaagaaban si loo gaaro midka weyn oo ah inaad waxtar noqoto qof waxtara ma la fahmi see lagu heli karaa kaas waa sheegnay hadda ka hor sanadkii hore kale markii aan isla wadaagayna macallimiintuna maalin walbay sheegaan tusaalihii aan usoo qaadanay muxuu ahaa ma rabtaa inaad wax baratid haa ma rabtaa inaad noqotid qof cilmi uu ka buuxo haa maskaxdaada akoon maskaxeedkaaga inuu wax ku galo ma rabtido see lagu gaari karaa maalin walba hal eri faa'iid haddii saas aan sameyn maxaa dhacaya maalinta dambe waxaa is arkay adoo buuxo cilmi kaa buuxo wax aqoon kaa buuxdo midii diiniga iyo midda maadiga labadaba inaa labada dhinac ka dhistay ahayd tusaale maxaan usoo qaadanay qolkan meesha noogu yaala haddii maalin walba subax walba markaan soo dheelmano hal dhagax inta qaadano aan ku tuurno berito aan ku tuurno maalinta kasii dambeeya haddana hal dhagax aan ku ridno maalinta kasii dambeeya aan ku ridno sanad 2 sano kadib maxaa arkay meeshiyo buuxdo Soomaa dhagxaan buuxdo arkay sidaas oo kale marka maalin walba waxaa rabaa ardaygu jumlad inuu faa'iido cashiradiisa ka dheeraada waxyaabo cusub soo kordhiyo waxyaabo cusub oo faa'iido Soomaa waa muhiim marka qodobkooda waa qodobkaas aad u muhiim yahay ayaa sidoo kale qodobka saddexaad maxaa waaye qodobka afraad aan dhaho inaadan ka shalaayin tillaabooyinka aad qaadayso oo noloshaada aadan ku xirin qof kale yaa dad waxaa jiro tillaabo kasta oo ay qaadi rabaan waxay ka sugaan dadaan ayaga ahayn naftooda ahayn yaa isbeddel waxay ka sugaan dadaan ayaga ahayn soo maa tusaale ahaan oo kale isbeddel markii ay sameeyaan dad kaleeto fiiriya qofaa kugu buushgareeya wax inaad samayso fiiriya wixii kula macaawanay maxaa bilaabay way kula macaanaaway tusaale ahaan oo kale inaad ka shaleeyo kaasa igu wacnay adaa igu yeel adiga maxaa rabaa marka tillaabo adiga aad leedahay inaad hore u qaado tillaabo adiga aad leedahay oo ah tusaale cashiradaada aad ku akrinaysid cashiradaada aad ku horumarinaysid waxbarashadaada aad ku dhisaysid dadka aad baahir ugu noqonaysid naftaada aad horumar tillaabo in adigu qaadaan la rabaa muhiim ah intaasoo qodob koowaad oo ahay qodob koowaad muxuu ahaa inaadan cabsanin horta isbeddelka aad samaynaysa inaadan ka cabsanin qodobka labaad maxaa waaye saaxiibo wanaagsan oo kula dadaala sida hooyada aabbaha waalidka walaalaha mid saaxiib inaad ka dhigato mar walba ku dhiirageliyo macallimiintada cashiradaada saaxiib ka dhigatid ku riixa qodobka kale muxuu ahay hankaaga inaad badisid hanyaradana aad iska ilaalisid sababtoo ah hanka waxaa la yidhahday waa waxa kala hormariya waxa qofka ku jiro rabitaanka fiiriya ama hamiga hanka waaye waa waxa laba qof oo isku fac isku mar dhalatay kala hormariyaa leeyahay yaa laba qof oo isku mar dhalatay inay kala hormaraan oo kala cilmi bataan midna guul gaaro midna oo hoos joogo maxaa sababay hanka qofka ku jiro waaye yaa waxaa jirtay ayadana xigmad muhiim ah oo aan naftirkayga aan ka soo faa'iiday macallimiintaydii hore
macallimiintayda khayr allah siiyo hanka xigmadaas wuxuu ahay alhimmatu alcaaliya tanqulu aljibaal himmada caaliyada hamiga alhimmatu alcaaliya tanqulu aljibaal buuraha hadday xambaari tagto hamida waa maxay haddii aad istiraado maanta dhagaxaan derbigaan musqushaan inta dhir dhagax ka kooban tahay waad qaadi kartaa oo bannaankaad u bixi kartaa haddaa istiraado haye waad qaadi kartaa hamigaaga haddii ay gashaba haye walaakina alhimmatu daciifa laa tanqul xajar waaxid haye himmad yar hadday kugu jirtaan waa maxay hal dhagax oo yariisa kor uma qaadi kartid haddaa istiraado ma qaadi kartid waa sax adaa isdabray mooho adaa isdabray waxaa jirta wax la yidhahdo marka meeshaas isdabradaas waxaa la yidhahdaa ayada naftirkeeda qofku inuu wax iska dhaadhiciyo oo waxa waaye hore u soco waayo oo ou is yidhahdo waxaan ma samayn kartid waxaa la dhahaa mental stigma maxaa laga wadaa inaa adigu waa maxay dhagax is saartid maskaxiya oo aad tiraado waxaan ma qaadi mental stigma la dhahaa ama stigma inaad is saarto oo aad tiraado waxaan ma qaadi kartid stigma STI haye GMA stigma stigma inaad is saartid adigu shil maskaxeed inaad isku qabatid oo tiraado ma qaadi kartid waxaa dhalanaysa markaas fiiriya waxaa dhalanaysa qofku markuu stigma ku dhaco waxyaabo la yidhaahdo social phobia ama social phobia ama waxa la yidhaahdo u fiirsaya social phobia waa maxay ama social anxiety bulshadii oo dhan qofku inuu la coloobo bulshadii inuu naco qof oo bulshadii oo dhan ka cabsado ya wax kasta bulshadii xataa fiiriya waa uu ka cabsanaya tusaale ahaan oo kale qalqal maskaxeeda qofka ku dhacaayo wixii ma samayn kartid oo iska dhaadhiciyey dadkii mujeda wuu ka cabsanayaa waa isla ceeboonaya keligiisa isla ceebaha waxaas daa sameeyo dadka imay saas ku dhahaan dadka imay kugu qoslaan dadka imay kula yaabaan oo isleeyahay sidoo kale waa isquursanay naftaadii quursanay adiga naftarkaaga aa isquursanaysid sidoo kale maxaa waaye adiga keligaa waxaa arkay adoo is dhaleecaynaayo oo naftaadii naf kale la barbar dhigaayo isdhahaayo alla taas uu kaa fiican yahay qofkaas adigu wax ma geshid eberaa tahay totale qofkaas hooye aaba fiican dhaleen qofkaas hebel meeshaasuu ka soo jeeda inaa istiraahdo ya waxaa jirtay xigmad kale oo ayadana muhiima oo markii la joogay dhinacaas ya soomaalida wax ugu badan oo waxyaabaha jaahilnada u sameeyaan dadkuna ay aqbaleenba oo aqbaleen waxaa ka mid a in lagaaga sheekeeyo hebelaa kaa fiican isagoo kasoo jeeda qurac hebel iyo qansa hebel ee wax ma bara kartid barashada iyo taas waxba iskama gelin shaqa isku male ya shaqa isku male shaqahee iskuma lahan middaas waxaa jirta marka xigmad waxay ka bilaabanaysaa oo malaynayaa yuqniika maxmuud waa nasab saas kuna malaynaa xadiis inuu ahayna waa u malaynaa qaybtiisa hore markii ugu soo dhacdo ayaa idin sheegaya middaas laakiin waa maxay iktasib adaban aw cilman cilmi ama aadaab kasbo cilmi markaad yeelatood edab kasbato waa maxay cilmigaasi muxuu kaa deeqaa yuqniika maxmuuduhu can nasab nasab ahaan midka kuugu faanayo nasabkiisu wanaagsan yahay ayuu kaaga deeqayo kaa hormarinaa ma la fahmay cilmigu waa maxay marka waxaan la hor istaagi karin marnaba oo nolosha u baahan tahay marka waxaan rabnaa qodobkaas inaan halkaas uga baxo oo ah comfort zone waa isla fahna soo maardo maxaan rabnaa marka intaasoo qodob markii la sameeyey in loo gudbo meel kale oo isbedel kale nolol kale in loo bedelo soo maa haye isbedelka kaleeto ama xeendaabka kale oo gudbayno isagana waxaa la yidhaahdaa qoro qalinka la soo baxay xeendaabkii hadda waa ka soo gudbnay xeendaabkii dadku ka cabsanayeen waxaa la yidhahdaa fear zone ama stretch zone fear zone waa meesha dadku isbedelka ay ka cabsadaan waayo inuu dhaco waa fear FEAR zone markaas fear zone ama stretch zone oo lahaa stretch zone waa meesha markii tusaale ahaan kale xaaladii aad la qabsatay adiga comfort zone ay ahayd meesha la rabo inaad isbedelka ah ee aad ka cabsanayso ee aad u socoto taasa waxaa la yidhahdaa fear zone aa la yidhahdaa fear zoneka marka ayadana waa meesha la rabo diilooyinkii goolashii iyo meelashii aad u socotay waayo kaas naftarkiisa markii laga sii gudbo zone kale saa jiro oo nolosha waxaa rabnaa marka cashirada
sanadka hadda waa cusub yahay bilow waay soo maa maadaama uu bilow yahay cashiradu intaysan kugu qaangaarin fiiriya cashiradu intaysan kugu weynaanin kugu badanin waxaa la rabaa inaad hadda saqiiro soo jishid aad qabato ya waxbarashada mujeedaa knowledge comes to the reading area waxbarashada iyo cilmiga waxay ku timaadaa aqriska wixii laguu sheegay oo aad ku celceliso oo aad akhrido sugto wax ka dheeraada oo aad dalabto aad ayadana sugto yaa wax ka dheeraada ee aad ayadana sugtood raadiso wax ka dheeraada aad sugto ama aad raadiso maxaan ka wadnaa self education ama التعليم الذاتي وحيران التعليم الذاتي محل وضع أرضك معلمين وحيسين يعني مادتي بالله وجينا توش وإفتنا يعني توش في أيوث يعني محاوي صراحة العوانة دي أسيب فافاسن أما سيب قوانا الله الله تعليم ذاتي أديك سمي مكاس أما self education أما self learning محاوي عوان كاس حيارة كالإهراد أو الحريرة أنت معلم كل شيء وقت الإهراد إنها إسبرتت وأدرادس ardaygu halkaasuu ku hormari karaa ardaygu ku hormarsan yahay waa arday walba intuu akhriska dheer yahay ya intuu akhriska dheer yahay hadda ka hor waa aniga idiin sheegay intaad yar tahay haddii aad dadaalin markaad weyn tahay maxaa waaye waxaa noqonaya qof aan waxba gelin oo nolosha adduunyada zaa'id ku ah oo fiiriya nolosha adduunyada iyo midda aakhiraba aan haddii aad intaad yar tahay idan ku tababaran oo aadan hee isdhisin maxaa waaye markaad weynaatana wax macnaahu zaa'ida ma samaynaysid soo ma waxaa jirtay waanigii dhahayay waxaa jirtay oo ah ninkii amase qofkii shabaabnimada intuu shabaab waxaa dhaha dhalinyaronimada qofkii shabaabnimada ku shahaada oo ku dadaala haye shaybnimada markuu gaaro shardhaada waa oraha shashaha ka badantaya maxaa yihi marka shabaabnimada qofkii shahaada ama dadaala oo waxbarashadii ku dadaalo alla kacabsigii ku dadaalo waa maxay sheegnimadow shaqaada oo raaxaysta oo baashaala oo mujeeda noloshiisii way macaaneenaysaa sidoo kale qofkii shabaabnimada ku shaqaada oo ku raaxaystana sheegnimadu shahaada saas yahay markuu waayeel noqdo waxaa arkay qofkii intuu yaryahay waxbaro waaye waayeel intuu noqdo waa max markuu noqdo markaas kadib waa amad iyo andadaf iyo xamaali iyo gaari gacan iyo daardameer iyo hayey iyo kadhac iyo markaasuu ordaama oraahda iskuulka marka lagu soo galo banaankiisa ku taal maxaa waaye ama tacliinta tunka ku qaad wax kaa tan weyn ama tacliinta toos aad soo maa ama tacliinta toos aad markaa tacliinta noo timaado annaga meeshaana kugu diyaarnahay iskuulku wuxuu kugu diyaarayaa maalin walba inuu ku dhiso waxbarashadaadii kugu dadaalo mustaqbalkaaga kuu iftiimiyo haye intaas aad xaqa u lahayd ka dheeraada inuu ku siiyo anshaxaagii nafsi ruuxdaadii inuu kusii dadaalo soo ma inaad qaadan doontaan waanadaas insha allah waa rajeynaynaa biidnillah oo aad naga hoos qaadi doontaan inaad naga hoos qaadi doontaan waa rajeynaynaa insha allahu tacaala waayahay waxaa rabaa marka arday walba sanad dugsiyeedku waa bilow waxbarashadii waa bilow inaad maanta degsato jadwal kooban oo aadan iska badan culays ahayn oo aad waxbarashadaada ku akrinaysid ku horumarinaysid yaa qorshaad degsanay tusaale maalintii markaa inta ka baxdo 6 saac waa tegaya xaafadda buugagta dhigo haddii galabtii iskuul dugsi kale iyo aadan aadayn waa maxay 6 saac ilaa 7 saac seexo 8 saac meelaha soo kac cabaar yar qur-aan akhriso kadib markii waxa waaye aad haddana salaada casar soo dukato kadib waa maxay haddii aadan meel kale aadaynin buugagtaadii waqti la qaado waqti kooban oo ha iska badanin fiiriya oo ha iska badanin extensive reading ha samayn oo ha iska badan zaa'id ha iska badan kisyar lagu akriyaa haddii aadan qorshe samaysan waa maxay oo habeenkii sidoo kale markii la gaaro aad wax yar akrin aad sidii maanta aad nooga qaad berita nooga soo celido waa maxay macnihi waxbarashada meeshaas ma joogaa meeshaas ma yaalo maho meeshaas macnihi waxbarashada ma yaalo ardaygaan qorshe lahayn waxaa la yidhaha waa ceeb aan hore u dhicin ya arday aan qorshe lahayn aan noog iyo meel wax ku qorta lahayn sidoo kale waa ceeb aan la filaynin laakiin dadka hadda way sameeyaan waxaa jirta hadda ka hor shimbiraa waxay u timidaa la yidhi nin beer falaayo oo saara ninkii marka waxay tiri ila tali oo jihey
ijihey macnaha jiha ii sheeg aan aado haye markaas wuxuu weydiiyey xaggaad ka timid horta adigu halkeed ka timid markaasu waxay ku tiri ma aqaan markaasuu wuxuu yidhi hadda intaadan ii imaan ka hor halkee u socotay markaasay tiri haddana ma aqaan markaasuu wuxuu dhahay meel walba aad way kuu furan tahay orod iska sii soco haddaba meel walba aad iska sii soco way kuu furan tahay soo ma maxaa la rabaa marka ardayga inuu jiho leeyahay oo u socdo oo uu leeyahay goolis ahdaaf iyo objectives maalin walba uu xaqiijinayo subaxdii markuu casharadii qaato habeenkii xaafid tago oo isla xisaabtamayo uu leeyahay maanta qodob hebel oo aan saaka qorshaysto ma sameeyey kaas ma sameeyey kaas ma akhriyey maada hebel haddii aanan akrin sababta ay ku dhacday maxaa waa cilad bixin inaad ku samayso maalin walba ardayga saxda ah waa kan isagu isla xisaabtamo intaa lala xisaabtamay oo cashiradiisa u diyaar garoobo waxaan jeclaan lahay marka inaan soo koobo xiisadii labaad ayaa loo sii dhow yahay mar walba faa'iidada akhriska ay leedahay waxaa ka mid a faa'iidada ugu dambeeyda kusoo gabagabayna waxaa waaye ardaygu markuu wax akriyo hadaayo isla fahamnay faa'iidada maxaa ka mid a inuu aqoon yeesho kow qodobka waad maxaa waaye aqoon inaa yeelato inaa aqoon yeelo weyda imaa is aragtay horta oo aad haddii mawduuc lagu dhiibo aadan waxba ka sheegi karin kow maxaa waaye aqoon darradaada jirto oo sababta wax ma akhriso qodobka koowaad haddii laakiin la yidhaahdo ardaygan wuxuu akhriyay faa'iidada uu ka helaa maxaa ka mid ah kow aqoon uu ka helaa xog ogaalnimo uu ka helaa inuu asagu isla socdo uu ka helaa maxaa waaye maskaxdiisii ayaa carsamayda caras maxaa la yidhahdaa maskaxdiisu waxay baranaysaa reasoninka sida qodobo loo falaqeeyo loo taxliiliyo loola dhaqmo yaa noloshiinu applicable u noqdo oo u noqdo qofka world citizen ama future citizen inuu noloshiisa caadiga muwaadin u noqdo qofka ya inuu muwaadin u noqdo maxaa laga wadaa noloshiisa inaysan ku adkeyn oo u noqdo qof cibaadada aysan ku adkeyn oo toosa mar walba faa'iidadaasaa laga helaa sidoo kale mood stabilizer waaye faa'iidada ugu horey maxaa ka mid ah qofku waa maxay waxbarashadii markii aad wax akhriso caawa wax akhriso wax baratay stresskii iyo walwalkii iyo maalihii badan oo aad ka fikeri lahayd oo naftaada la barbar dhigi lahayd dadka kaleeto waad ka yaraanay faa'iido weyn waaye marka qofku wax bartay waxaa lagu yaqaan kow openness qof furfuran waaye sidoo kale waa maxay open in mind maskaxiyan maxaa waaye qofkaasi qof furfuran waaye oo wax walba reason garay kara intuusan iska qaadan soo maha faa'iidooyin badan leedahay marka waxbarashadu ardo akhriskuna waa muhiim waxa lagu gaaro waa maxay waa waxa lagu gaaro cilmiga markii aan sawirayno tusaale ahaan oo kale sawir ahaan markii aan u sheegno waxaan dhahnay nolosha meeshii ka bilaabato waxbarashada iyo meeshii ku dhammaato hadaafta ama gooliska ugu dambeeya sida jaranjaro derbi la saaray oo kale waaye jaranjaradaas waxay leedahay meelo lagu tigaysto ama lugaha la saarto lugta koowaad meesha saari lahayd maalinta koowaad akhriskeeda maalinta ka labaad akhris ilaa marka dambe aad ka gaarto meesha ugu dambeyda guusha waxaa jira wax la yidhaahdo sharci ama xeer jiro la yidhahdo nolosha bareto principal inaad iska ogaataan muhiim waaye ya si aad hadhowdii u baarataan marka xaafadda ku laabataan bareto principal qodobka ugu dambeeya waa aan kusoo gabagabeynayna ardayga meel walba nolosha ka mid a qaacido nolosha loo isticmaalo waaye hadday tahay waxbarasho hadday tahay ganacsi hadday tahay dadaal hadday tahay dhan kasta nolosha waxaa la yidhaahdaa bareto principal b for ben ARETO bareto magac waaye principal b for ben IN BR ku xigto aya ku sheegto markaas IN N CI B for Ben LE ha barenta principal wax la yiraahdo jirto ama magac kale leedahay oo ah 20-80 ya qaacidadaas magac kale leedahay u qor macallin waa qaacidada magaceeda kala waaye waxa la yiraahdaa 20-80 qaacidada nolosha qaybaheeda kala duwan lagu xaliyo waaye waa 20-80 yes 28 rule ay yiraahdaa 20-80 rule ama Pareto principle maxaa waaye marka 20 ka ugu horeeya waxay u taagan tahay horta ninkan Pareto la yiraahdo marka ugu horeeya wuxuu ahaa nin dhaqaaliyahan oo sidoo kale economicska iyo statisticska bartay oo Talyaani oo ah Talyaani marka cilmi wuxuu sameeyay trakow sameeyay wuxuu ogaaday la yiri marka maadaama uu Talyaani ahaa dhulka Talyaaniga haye 80 kamida boqolkiiba fiiriya boqolkiiba 80
fiiriya qaacidada markii la kala fasirayo qaybna ma laga soo bilaabo maxaa leenahay boqolkiiba 80 wuxuu ogaaday wadanka Talyaaniga dhulkiisa boqolkiiba 80 inay milkiyadiisa leeyihiin dadka boqolkiiba 20 kamid ah fiiriya boqolkiiba 20 dadka kamid ah Talyaaniga ah inay dhulka ugu badan leeyihiin oo 80 boqolkiiba ogaaday marka qaacidada nolosha dhan loo isticmaalaa tusaale 20 kamida boqolkiiba dadaalka maanta aad sameynayso yaa 20% of your effort dadaalka aad sameynayso maanta 20 boqolkiiba waxay sababaysaa 80 boqolkiiba natiijada iyo waxqabadka iyo wanaagga qofka aan noqonayso berito yaa mujeda 20 boqolkiiba dadaalka maanta waa maxay aad samaysid waxay sababay doontaa waxay soo saaraan natiijo ah boqolkiiba 80 natiijo wanaagsan oo aad berito heli doonto ما لا فهمي قاعدة اسمها كنولش قيبه ذا كلا دوانا لو استعمال أيضا بارتان كسمية يا هذا ما سنتين وحرجينا إن شاء الله تعالى أنا كسف إذا سدون تام كن ابن من شئت كن ابن من شئت واكتسب أدبا يغنيك محمود عن نسب كن ابن من شئت كن أهاو ابن من شئت قف كثرته ويلكيس أهاو أو قبيل كثرته يقف كثرته ما شهرت كسوجيت صومالي أهاو إثيوبيان أهاو كينيان أهاو إذا هربت كسوجيت محل الرواء واكتسب أدبا أدب علم أقوال ناقص بتاع الرواء محل يقتري مركب مدرس يقنيك محموده عن النسب قفك النسب كيس كوغو فانية أي كاهر مريني أو كاغا وناكسن تاي مروا ما لي فاهم waxaa laga qofood kala hormaray haday maxaa dhahnay waa hamiga iyo dadaalka Soomaaliya laba qofood isku mar dhashay hal habeen waxay ku kala hormareen waa dadaalka marka dadka kale waxaan dareemaa ardada kale ama dadka kale xaafadii jiifo inaad ka nasiib badan tihiin oo aad maalin walba wax ogaanaysaa oo aad maalin walba u nooshihiin inaad hormarto taas qalanteena ma tahay inaad hormar diyaar u nahay